السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الهواء إن سلامي أكشل ونوح عية برنامجكي وحا إيماني xilligan duubay waa awoodi kara inaan screenkas caadi kaligiisa duubo laakiin waxaa isdhahay amay maaragtay dadka qaar fahmi waayaan oo si waadax ah u dhigtaa oo computer ahaan ku apply garaysa waxaan doonaynaa apply gareeyo hooyo iyo ninkeeda iyo caruurtiisa ayaan doonaynaa inay apply gareeyo marka sida loo apply gareynayo ayaan tusaaya website-ka imaanaysa website-ka waa idin sheegay mar hore waxaan ku dvprogram.state.gov waaye waa soo galay welcome-kan joogaa marka intaas galaysa un caadi xaggana ku keenaya marka waa bilaabayna began intari insha Allah bidin la karim ilaahay noo fududeeyo marka si caadi ah oo qori doona insha Allah bidin la karim muqdisho aan ka dhigi doona wax walbo sida magaalada qof walba jecel yahay oo soo weydiin kara laakiin hadda muqdisho ama inoo dhowdahay marka muqdisho aan ka dhigayna iyo hargeysa aan kala dhigayna waxaan leenahay aabbaha wuxuu ka imaad hargeysa meeshan waxaan ka dhigaynaa kale ina ka imaaday hooyadana ka imaaday muqdisho maybe hadda hooyada apply garaynaysa kasoo qaad mise aabaha ka dhigna hooyada in aabaha ka apply garaynayo maybe dumarka inay jecel yihiin macquul ah ayagaan ka bilaabaynaa ayagaan ka dhigaynaa hooyadan ka dhigaynaa okay marka waxaana meesha magaca ugu gelinaysaa gabadha waxaa la dhahaa apply garaynaysa Muna Yaxye Zakariya la dhahay Muna waxaa la dhahaa Muna Yaxye Zakariya aan gabadha ka dhigaynaa hooyada aabahan waxaa ka dhigaynaa Yusuf Ali Axmed aan ka dhigaynaa okay marka Muna ka bilaabayna aabeed waxaa la Zakariya awowgeed waxaa la Zakariya capital letter ka wada dhigi kartaa small letter ka wada dhigi kartaa ikhtiyaarkada iska leh laakiin aan ka dhigno capital aan ka wada dhigno okay Zakariya okay ayada waxaa la yiraahdaa Muna ali yiraahdaa aabeed waxaa la yiraahdaa dhahay Muna Yaxye okay labada dig maxay tahay female way soo ma okay goorteed dhalatay marka waxaan ka dhigaynaa xaggan bishii shanaad maybe bishii shanaad waxay dhalatay bishii shanaad maybe soo qaad 22keeda waxay dhalatay 1990 la iska dhig 1990 la dheh okay magaalada ku dhalatay waxaan ku dhahay hooyada waxaan ka dhigaynaa inay ku dhalatay Mogadishu ayaan ka dhigaynaa okay iyagana muqdisho deegaan soo qaadiya okay wadankay ku dhalatay Soomaaliya obviously Soomaaliya okay sawiranta meel gooni aan soo qaadi doonaa dad oo maaragtay ajaanib ah ayaan sawirantooda ku qaadi doonaa oo ku dhigi doonaa waayo maadaama aan haynin hooyada waatan aan leenahay Muna sorry qofkii Muna la yiraahdo marka qofkana symbol ahaan ugu soo qaadaynaa in care of ninkeedan ka dhigayna in care of Yusuf aan ka dhigayna inuu Yusuf ay ka taxadiro aan ka dhigayna Yusuf aan leeyahay okay waxay degan tahay leenahay maybe address one kan qasab waa loo baahan yahay waxay degan tahay maybe Makka al-Mukarrama calaamada waa saari kartaa hadii doontidna ma saaraysid al-Mukarrama okay Makka al-Mukarrama Makka al-Mukarrama hadii saari kartaa option way kan kalena waa option waxaan ka dhigi karnaa Makka al-Mukarrama degmada ka tirsan tahay degmada ka tirsan ka dhigi kartaa laakiin option waa saga tagi karnaa okay magaaladana waa Muqdisho magaaladan waa Mogadishu okay district waxa way Banaadir okay Bosto no waa dhigi kartaa haddaad doontidna waxaa dhigi kartaa 252 waa dhigi kartaa laakiin waa option laakiin aan dhahno no postal code aan dhahno wadankaas wadankee waay wadankay joogto Soomaaliya Soomaaliya joogtaa okay wadankay hadda ku nooshahay just now Soomaaliya ku nooshahay wali okay Soomaaliya ku nooshahay telephone number wax la iska qoraynaa adiga 252615765379 as ka dhigno as example ahaan Gmail waxaan ka dhigaynaa magaceedu maxaa la yiraahdaa Muna la yiraahdaa Muna11@gmail ka dhigaynaa no @gmail.com haddana xaggaan aan ku celinaynaa sorry aan ka tagay haddana xaggaan aan ku celinaynaa Muna11@gmail.com okay
waxbarashadeeda high school ayaa loo baahan yahay inay ka sareyso high school iyo wix ka sareeya loo baahan yahay waayo dadka ma fahmaysin idinka mar walba in ku celiyo dad qaar vocational dooranaya arka vocational mission waxba laguma baahno eeg xaggaan akhriya you must have minimum of high school waa inaad ugu yaraan haysataa ugu yaraan waaya haysataa high school diploma ama maaragtay shaqo oo kooskeeda aad dhamaysta haystaa vocational schoolka haddaad dooratid oo equivalent to degree haddaad dooratid not accepted maxay ka dhigan tahay lama qaabila ama lama aqbalaya ka dhigan tahay oo skill waa intaas kale loo akhrisan kartin mission ku laabta si fiican u akhriya okay iyada waxaan leenahay married waay marriedka laba ah marka marriedkan mid koowaad iyo mid labaad waay marriedkan waxaa waa sponsorkaaga is not a US citizen ma aha US citizen ma aha qof oo degan US ma aha marka or ama US lawful permanent resident inuu meeshaas degnaansho ku haysto ma ahana u dhahay tan waxay wuu yahay yani ninka inuu xaggaas jooga ka dhigan tahay marka xaggaas ma joogay dalku ila joogaa ka dhig okay markaas ka dhigaysaa caruurtaada maybe caruurta kasoo qaada labaan ka dhigaynaa 02 aan dhigaynaa labaan ka dhigaynaa saasaan ugu gudubnay marka part 1 saasaan kaga gudubnay muxuu inta iga diiday at least one okay data validation okay please enroll the message okay mailaan qaladnay meesha qaladnay waa xagee mailaan qaladnay meesha qaladnay waa noo calaamadaynaya okay ha emailka labo mar kuma celinin ama isma laha okay tan mana aan dhahay okay muna ay laga rabay meesha sorry marka intaas waayo okay waa ka gudubnay vocational ma dooran high school aan doortay married tan saraan doortay okay marka caruurtan labaan ka dhigay continue dhaha marka waxay keenay batu ay keenay batuna waa deviation maxaa la derivative alla spons waa maxaa lamaanahaaga naag hadaa tahay ninkaaga waay hadaa nin tahayna naagtaada waay okay asaga waxaan dhahay magaciisa waxaa la yidhahdaa asaga gabadha xaraynayso muna xaraynayso iyo familkeeda u xaraynaysaa ninka waxaa la dhahaa Yusuf Ali Ahmed aa la dhahaa marka xagga magaca oo maaragtay waxaa lagu qorayaa asaga magaca awowgiisa ku qoraysa Ahmed alla awowgiisa Ahmed asaga magaciisa waxaa la yidhahdaa Yusuf okay abis maxaa la yiraahdaa Yusuf Ali aa la yiraahdaa abis Ali aa la yiraahdaa okay marka waxaa lagu dhahay okay waqtigu dhashay waqtigu dhashay ku xigo waqtigu dhashay asan waxaan leeyahay maybe 11ka bisha 11 November waaye 23 dhashay 1989 aan dhahayna 89 oo dhashay asaga waayo hal sana ka weynaysiinayna asaga muxuu yahay waa nin okay midda ku xigto waxaa waaye magaaladu ku dhashay kasoo qaad maybe magaaladu ku dhashay waxaan dhahaynaa maybe Hargeysa ku dhashay aan dhahaynaa ninkaas Hargeysa oo ku dhashay marka wax kale lagaama weydiinaya intaasaa lagaa weydiinaya Hargeysa okay Hargeysa intay waddanka ka tirsan tahay Soomaaliya ka tirsan tahay sofa Soomaali baa xadan xaggan ka dooranaysaa dhac okay sawirkiisa xaggan gelinaynaa sawirkiisa odaygaan ka dhigaynaa asagana odaygaas ka dhigaynaa okay marka waa dhameynay odayga asagana waxaa u soo laabanay caruurta children soo jeedid caruurta waa soo dhameynay odayga xaaladdiisii xilligoo dhashay magaciisa wixii dhan waa soo gelinay ilmaha u imaanayna ilmaha mid waxaan ka dhigaynaa wiil midna waxaan ka dhigaynaa gabadha weyn marka gabadha waxaan ka dhigaynaa magaceeda Malyuun marka Malyuun laga dhigaayo asaga wiilka aabood waxaa la yiraahdaa Yusuf Ali Ahmed marka awowihooda wuxuu noqonayaa Ali oo noqonaya awowhooda qofka magaciisa waxay noqonaysaa Malyuun gabadh yarna okay aabahan waxaa la yiraahdaa aabahan Yusuf waxaa la yiraahdaa exact ma fahanteen Yusuf aa la yiraahdaa marka sidaas waay okay xilligay dhalatay maybe waxaan dhahaynaa xilligay bisha 11aad ama 12aad 23keeda 2018 exactly marka idan waa gabar okay marka gabadhaada magaalada ku dhalatay maybe Muqdisho aan dhahaynaa Mogadishu ay ku dhalatay okay Muqdisho ku dhalatay Muqdisho wadankee waaye Soomaaliya dhahaynaa okay sawirkeeda keenaa sawirkeeda soo qaadanaysaa sawirka markaa soo qaato waa tan gabartana aydan example ahaan u qaadanaynaa okay waa dhamaatay gabadha koowaad marka formkeeda intaas laga rabaa su'aalaheeda intaas laga weydiinaa cuniga labaad adana aad soo galaysaa cuniga labaad asagana abugiisa maxaa la dhahaa cali un baa la dhahaa soo maa cali oo noqonaya magaciisa wuxuu noqonaya wiilka magaciisa waxaan ka dhigaynaa asagaan ka dhigaynaa cali asan awowgiisana cali way xagga soo isdoomanaysaa cali awowgiisa waaye asaga waxaan ka dhigaynaa ma aragtay
Yacqub baby asagana waxaan ka dhigaynaa magacin ka dhignaa aniga iga dhiga nuux ka dhigaba nuux ka dhiga asaga nuux ka dhiga okay nuux aabaheen maxaa la dhahaa nina yuusuf yuusuf waa ila fahmaysiin u malaynaa okay markaas hore yuusuf waa ka dhignay wiilka magaciisa okay xilliguu dhashay wiilka wuxuu dhashay maybe bisha koowaad ama bisha labaad uu dhashay eber labo uu dhashay bisha labaad uu dhashay taariikhdu dhashay waxaa waaye taariikh ma aragtay taariikh soddonkeeda u dhashay okay waqtigu dhashayna waxaan ka dhigaynaa 2020 ka dhigaynaa ama 21 ka dhig okay waa ninkaas nuux waa ninkaas marka magaalada ku dhashayna muqdisho ku dhashay magaalada doona ku dhashay kara magaalada soo qori kartaa okay muqdisho ku dhashanayna muqdisho ku dhashay wadanka ku dhashay Somaliland no Somaliland okay sawirkiisa loo baahan yahay wiilkaas sawirkiisa waa kana kan yiriiskan soo qaadayna intaas waa continue dhaha marka way faatay Soomaa wax kale igama weydiina inta markaan ka qalday waxaa la qalday one data qaar dhintooda maqan waa kan you must square sawirka lagu haysta wax kale lagu haysta ma jirto soo mujid sawiraha ninka class ka soo qaatay ali lagu haysta okay yaa way qofkan hortii ahaa duqmu ahaa aabba inuu ahaan jeclahay ha sponsor mujid waa odayga maybe aydan ku celinaa sawirka tusaale in ku tahay mugtahay ayada sawirkeedan ku celinaa marka saasaan ku sameynayna continue dhaha marka continue dhaha sawirkan tusaale in ku tahay mugtahay waa laga diiday wali sawirkii waa la haystaa kan waa kii nuunaha kii anigaha kii gabadha yar waaye wiilka le ka dhigan isagana marka aniga intuu soo laakiin exactly saas la inka rabaa idinka okay continue aan dhahayo continue markaan dhahayo dan maxaa lagu haystaa wali wax baa lagu haystaa okay this date is not valid for birth month ma noqon karo dadkaana la dhahay okay bishaan ama soddon ku dhamaan soddon kuma dhamaanaysa bisha labaad waa ogtiina maxay i qaban weyseen waxay ku dhamaanaysaa 28 ay ku dhamaanaysaa bisha labaad 28 29 ku dhamaato kuma dhamaato soddon inta qaladka xaggaas oo imaamka sorry waa kana marka part 1 imaanay waxaa go back to ku noqon waay ama information ka soo gelisaan ku saxan yihiin qofka soo apply gareeyay soo ma aha Muna Zakariya ana Muna Yaxya Zakariya soo ma aha information keeda part 1 waa kaasa ayuu dhameystiran part 2 waa kan hadan imaaday sponsor ninkaaga magaciisa waxa ka qalday waa iska saxaysaa waa fiirinaysaa qofkii ilmihii hadii ilmihi saddexaad jiraan saasle 1 2 3 4 ilmaha saasle link u galayaan marka submit marka aadna automatic wuxuu ku soo saarayaa calaamadda ahayd success marka haddaan waxaan diidaa inaan gudbiyo u guuleysto numberkan qofkan ma jiro marka ma heli karno inaan saas u gudbiyaan diidaya marka intaas soo joojina insha Allah biidin karim I hope inaa fahanteen aan rajeynaya wax kale su'aal ah oo soo weydiin doontiin insha Allah single kan weydin soo gelin doona waa fududeey asagana assalaamu calaykum videoga haddii xogaho si fiican u arki weysan karaa hada waayo waxaa idin tusay as reality ahaan idin tusay xogaho marka ma sanadii boqortooyo